وإنكم هم بلينا يا وأنا إذا كبوا قاعدين يا ما أنت وحين قلنا ساعة مالين يعني فرصة إنه إن نصورني معنا أو أنكشف كسنة دور كصحافة ده يوحيبها اللغة بهنية ومالين حسوس مدن أو رناهانتي ورباهنتو سيدو بريه هالكن كتشيديني لاكتشركا وشجايبه waxay leedahay dhinacyo fara badan dhinac halisa iyo dhinac fursad ah labada challenges iyo opportunities iyo risk intaba macnaheedu way leedahay taas inaga oo maskaxda ku hayno hadana waxa xaqiiqa saxafiyiintu waa geesiyaal umada u kacay intooda saxani waana laga maarmaan si qaran la dhisayo in qaybta saxaafadu ay iyada oo madax banaan xeerarka ama ethics-kana ilaalinaysa ethics-ka saxaafadeed inay maaragtay bulshada iyo qaybaheeda kala duwan u soo bandhigaan xogaha jira waa arrin muhiim ah waana tiir aad iyo aad muhiim u ah oo dawlad dhiska dimuqraadiyadda iyo horumarkaba aan dhihi karro wuxuu yahay hormood madashan maanta jaamacadda Jigjiga ay noo soo qaban qaabisay waxa ku dhigo ah dheelitirka xorriyadda saxaafadda mas'uuliyadda shacabka iyo anshaxa warbaahinta halkaas inta kaliya markaad eegto wax badan baa ku baxaya waxa weeyaan xornimada saxaafaddu waa mid muhiim ah mas'uuliyadda shacabka qofka ka saarana iyaduna waa mid muhiim ah ethics-ka ama anshaxa ay leedahay saxaafadduna in la dhowrana waa arrin muhiim ah waa saddex arrimood oo saddexba run ahaantii laga marmaana saxafigu siday wax u jiraan ee dhabta ah inuu sheego uu baahiyo waa sax waa arrin laga marmaana waa arrin fiican public responsibility-ga dadka haya ama dawladda markaa matala waxay u noqonaysaa saxaafaddu muraayada iska arkaan oo khaladaadkooda ay ka daawadaan oo ku saxaan marka ay tahay saxaafaddu mid dhaba marka la leeyahay mas'uuliyadda shacabka macnaheedu waxa weeye waxyaabo badan oo been abuura oo khatar keeni kara oo talaya reehibilay ah dana kale iyadoo la leeyahay oo aan saxaafad looga jeedin oo dadka dhexdeeda lagu soo tuuriyo marka la sameeyana waxay noqonaysaa arrin halis ku ah amniga shacabka arrin halis ku ah midnimada shacabka arrin halis ku ah jiilalka soo koraya iyo agaraadka ay la ka ilaahayeen taas marka si loo xakameeyo anshaxa saxaafadda ayaa jira saxaafaddu way madax bannaan tahay laakiin xadlaan ma noqon karto xadlaan ma markan xadlaan leeyahay waxaan uga jeedaa saxafigu waxa ka xaraana inuu isagoo ka duulaya shucuurtiisa qabiilkiisa diintiisa waxyaabihiisa isaga gaarka u ah inuu saxaafadda ku dabaqo sax ma saxafigu waa inuu wuxuu sheegaa uu noqdo wax dhexdhexaada oo run ah saxafigu waxa jirta meel uu na gaari karin waxa kamid ah in shakhsi la sumcadilo ama hay'ad la sumcadilo hay'ad markan leeyahay waxay noqon kartaa mid dawli ah iyo mid aan dawli ahayn haddii shakhsiga hay'adda dana idin dhex maraan ama asfahmi weeyaan binaadamku ileen wuu khilaafaa wuu isfahmi waayaa aad markaa dee waa power way waa awood weeye saxaafaddu aad saxaafadda u fuusho adoo ka duulaya dana gaar ah laakiin ku suurad xumaynaya fursadda aad haysatay saxafiga ku tahay inaad bulshada sumcadil iyo suurad xumayn aad ku samayso hay'adaas ama shakhsiga taas ma aha miduu saxafigu xaq u leeyahay xaq uma laha saxaafadna ma aha taas ee waxay noqonaysaa wax kale marka waxaan dhihi lahaa run ahaantii saxafigu xaq buu leeyahay shacabkuna xaq bay leeyihiin cidda public responsibility-ga haysa ee dawladda markaa jirta hogaaminaysaana xaq bay leedahay saddexdaa xaq ba iyadoo la dhowrayo in meel dhexe oo sax ah oo hufan in saxaafaddu ku socoto wey taa macnaheedu maaha noo ceeb qariya in la soo ceeb qariya ma
dhaliilaha jira ee dawladda hay'adaha dawliga ka jira ee saxda ah waa la soo bandhigi karaa